جمهورية سوماليلاند مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وأنا بريء أنا يلحق الآن بدون صنعي حبلها الدوام مقعوي waxaan iyaga ugu ducaynayay ilaahay u fududeeyay halkaan loo magacaabay waana ku hambalyeynaya waxaan leeyahay ku soo dhawaada faraasada laydin magacaabay waxaan rajaynayaa inaad muuqaal fiican oo dumarnimo ah aad idin gudbin doontaan insha allah waayo gabar kastoo la magacaabay waxay duwan tahay magaca haweenka Somaliland wixii ay nala nimaadno ayaan wax ku helina insha allah marka waan soo dhaweynaya waxaan kaloo salaamayaa dhammaan xubnaha qaaliga ah fadhiya xildhibaanadii hore ee Suudiga soo baxaan anigu waxaan aaminsanahay inay yareen habdaydo meel fiican ay soo gaareen oo maanta dhiirigelin mudan oo hablaha kale maanta musharaxiinta ah waxa ay iminka daba socdaan hablihii hore ay soo gaareen maanta odayaasha hablaha u taagan ee doonaya inay soo magacaabaan ee doonaya in la doorto waxay arkeen hablihii hore codka ay heleen yaani soo bixin laakiin meel fiican ay soo gaareen marka anigu waxaan qabaa hablaha hore inaanay niyadjabin inaanay soo arag inay hadheen anigu waxaan qabaa waan aaminsanahay meelo badan oo aynan hore u gaarin inay soo gaareen waxaan u hambaleynayaa waan dhiirigelinayaa xildhibaanada keliya aamina waan la yaabnaa intaasoo nin baad dhex fadhidaan waxaad ku dhex fadhidaana waa aqoontaada iyo kartidaada iyo karaamada aad ku leedahay qaranka ma aha haddii aad dhex fadhido oo aad xilligaa tahay culaysku saaran yahay culaysuma saarnee waad ugu qiimo badan tahay anaguna waan kuga bartaarina waxaan kula talin lahaa hablaha musharaxiinta ah waxaa jira hablo badan oo musharaxiin ah laakiin aan xisbiga ka tirsanayn haddii aanay xisbi gelin iminka hadhowta caqabad bay ku noqon doontaa hablo badan oo banaanka taagan oo haddana la musharaxiin baa la nahay suuragal maaha waxyaabaha had iyo jeer habla ay ku dhacayaan bay ka mid tahay waa in iminka gabadha doonaysa inaysa soo sharaxdo ay xisbiga ay ka sharaxan tahay garanaysaa haddii iminka la qabto doorashada waxba kamay hadhin waxaa la doonayaa in iminka ay ka sii mid noqoto xisbiga ay doonaysa inay kasoo baxdo si hadhowta ay u hesheeyo taageero midda labaad kootada ereyga kootada in waliba laga soo celay waxaa leeyahay dumarka isku hadlayna waa wax la heli karo wax la waayi karo laakiin kootada waxay ka mid noqotay waxyaabo hablo badan oo muddo hore hawlgeli lahaa oo isku halleeyay kootada in haweenkelin taa lafteeduna ay ku keentay inay soo bixi waayaan marka hablaha dambe waxaan leeyahay ha idin noqoto cashar hore taas ha ku talin kootada shaqaysa gabadh kasta oo u taagan inay ka mid noqoto golaha wakiilada iyo golaha deegaanka haweenweynaha reer Somaliland waagiisa u taagan waayo haddii aanay haweenka waxba siinin dee cid kaloo ay canaanayaan ma jirto ragga kama baarna waynu u baahanay oo gabadh aan la wada dooran cod ma helaysa way noolyihin laakiin waxaynu leenahay haweenka hormooda ka noqdaan haweenka musharaxiinta ah waxaan aad iyo aad mar labaad ugu laabanayaa ujeedada munaasabadda oo ah hablaha caawa soo kordhay ee la magacaabay dhowaan inaynu u hambaliyeyno u baarigno inanta isugu keen yeedhay iyadana aynu u hambalyeynayno nicima waxaan hambaliyada u dirayaa gabdhaha madaxweynuhu uu magacaabay qoladii hore iyo qolada dambaba aad baan ugu hambaliyeynayaa caawana xafladu waxay daaran tahay iyaga hambaliyeyntooda soo dhaweyntooda qof kastana xilkii loo magacaabay ilaahay ha u fududeeyo oo ha la qabto waan u ducaynaynaa waxaan salaamayaa madaxda wasiirka xildhibaanka iyo dhammaan cid kasta oo maanta halkaa ku fadhida noocayo xilka aad baan u salaamayaa haweenweynaha waan salaamayaa waxaan leeyahay uun madasheeda waxay daaran tahay inaynu hablahaan u ducayno una hambaliyeyno waxaan hambaliyo weyn u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi
waxaana ugu hambalyeeynaya hablaha uu magacaabay waxaan leeyahay haddaynu nahay haweenka malaha dhowr iyo 30 sannadood oo waddankani jiray baynu calaacalayni mar walbana calaacalkeena madaxweynayaasha ayaynu u direen laakiin waxaa jirta siday qoladii ugu horreysay baa sheegtay mid gacanteena qalinka madaxweynaha marka laga yimaado mid gacanteena ku jirta sidaa laydin sheegay hablaha sharaxan maanta dee codka ay ka doonayaan cid ay ka doonayaan waxaa codaya waa haween haddii run doonayay laysu sheego haweenku haddaanay haweenkaa garab istaagin ciddii kale wuxuu ku daraysa waa sax oo inaguba rag baynu dooranayna inay namada iyo odayaashuba doortaan waynu uga fadhinaa laakiin cidda ugu badan ee codaysa ee guyuuyada joogta waa haweenkaa looga baahan yahay hablaha Somaliland وهبلو في عن ويجعلني هبلو إحنا قدان لكن هاي بروح يدور شغل على الجار باوي خبر فيها جار ولا إلى اللي عادي با إلى اللي أضيق فهم هو ده يجتمع ده إلى أبيه إلى أولاد كي عيال رمي حقيقتي مسقطة هي بايروش فرحان وين كأولاده الدكتور أدوك دولي أنا دورته عيال رمي حل دوريسا مركا يدينه إلى إنتاير صف كهرات له إلى هذا عامل وحسي قيرة وشاك إلى جير مركا وحي إذا تسعى إلى حنون أي قبل يسوع أي كبر بدين يضع على صوتورتي التاير إذا كنا تيجي جميع أو بيواي عم هاس يجري يعني أنا قبلها ولا شقينا وحي إكسبيرينس وحي خبرة والهو يتربى ولا برتاجنا أنا بحبه أبان كويعيا وعلى مدحوينه ومحصلتها هاي لكن نظر في الله وحكى بكاس وينا في رب الله حسن إن شاء الله إلهي نبكي إنه أنت الكبر أنت ملعاب أيام يسوي من دولة حفلة تكوين وبلان وأنا تجيب يا حفلة ضمين لملعاب وحكى له عن سوق وين يا حفلة شرحان وحنا بعنا كم شرحان وحنا هيدو مرو إدو مباهنين إننا إسكبران إننا إسكبران كوي هرنا إن دعينا يدين كهذي كوي صوص لها طبعا تكاشرتها المطليبار إدين المطليبار إن أكتر حجبان عاملة فريد الكوميشنر هذا هي رسمياش الحينهم مقعاوي إلى دمان هواين كان قلصوا قيب قلي حفلة أولا يا حي آد بدو هنسنتهدين سلام نور شرفتين النوبة تماردين النوبة كيتين مرتقاتك وتكون هنسنتهدين عاو حفلة المية هاي حفلة حسبي حفلة سياسات هي حفلة قف يطبين منا وحنا حفلة haweenweynaha Somaliland gaar ahaan haweenka reer Hargeysa ay ugu mahadcelinayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland xubnaha uu magacaabay ee ugu horeyso kaltuun wasiiradeena sidoo kale inaynu dhiirigelino hablaha xildhibaanada ah ee sharaxan oo iyagana nidhaahno waan midigarab taaganahay cod iyo cudud waxaa nooga baahan tihiin waan midigarab taaganahay sidoo kale haweenku waa lafdhabarta dadkeena marka laga hadlayo haweenka waxaa lagu qiyaasaa inay 60% ay wax dhaafsan yihiin haddana mar kasta oo haweenku sharaxaan waxaa la doortaa ninka reerka ah ee barbar cararaya kuwaas waliba ugu badan dadka wax dooranayana ay haweenku ugu badan yihiin caawa muhiimadeyda koowaad ee ugu weyn waxa weeyaan inaynu madaxweynaha loo mahadcelino weliba aynu nidhaahnayn taasina uma filla haddaanu nahay haweenkii ee waxaanu kaaga baahanahay inaad xilalka u kordhiso haweenkii gaar ahaan xisbigee kula shaqeeyey aniguna sidaa waxaan ka fariin u dirayaa dadka qaaliinooda inaan waqtigan siyaasad u taaganayaan baan wax dooraayo inaanan waxba dooraynin balse gabar walba oo haa iminka iyo mar walbaba dhinaceedu yahay inay siyaasadda Somaliland ka dhex muuqato inaan garab u ahay barbar taaganahay محل حبنا حبنا وحبرتي أن نسمع درس داري
إمكان أن يبدأ بشرحه معه أيوه عندي هي الأهمية اللي كنت توصل وبفضل هذا أيوه لا تروح عنه ومن يجيك قطعة أيوه أمي أيوه كتر السور وهو سيرة كمقدم والمسيرين أقوم حديث جماعة ومدة دائما محمد سيراني وعن أمر كمان أعتقد من السياسة الصوابية ونعمل كمدة أيها حوالي خروج على السبوة وإحنا قررت إيران بنات وقررت إيران بغلاني إيران حديث جماعة ومدة دمدنا وحينا ما كان معلوم ومعلوم ومهو لنحويها ما تجوبا إنت برد وتحوينا وإنك نقول لك وحرارك على مدحوين عن الموضوع الطيارات فيها بعض صور السيدات عن عربنا نحريص دي احترام كيس عالي كيف رغبنا إلى أن نوزي وقتها بمش غيريني ما كمان تعرفوا بيومي لا يتعامل وهدول هو مدحوين على العالم كل يوم سفر معنا غيره يكون عاقل يروي لكن أقول لنا ما لا يشوفه وهو عامل من العالم وهو عامل كم دراسة حل سياسة وهو عامل كلام يسوع محاولة عملية من بعضها اليوم حسبيا روح عملية هذه هيوان الكلام واليوم أنتي إذا شيء وجدنا لا قبتي عشان عاون وأي وكيلتي نعيمة ورنتي كلمة السودوية وحن هواك فريون أما قعد سنة لما قضب من وحوي هواي بضم مشاركين وأسو يستاجي إن كمل نقطان قرياشة برلمانك ديجان كيو كسروا حمدولينا إن هواك وعليان هواك كلية عدك كمدولينو لكن إن بدينا والدكين أنت بقول كدولنا عدك لكن نصران كان رجل نسيبه يعني وحب دولنا هؤلاء هل تفرقيا إن دمانتو أوليان هؤلاء حدي أتليس عند كل كلمة قبيلة فرشحن إيه بشوتي إيه المبالاتليس هبلا قبيلة منها ويشرحيني إيه أبو عضيسان أو هبلاها بصوص عرب والمعتين تباماتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته